رجلا دعا لله بالقرآن بالخلق الحميد قد بات طول حياته يدعو إلى دين السلام. رجلا دعا لله بالقرآن بالخلق الحميد قد بات طول حياته يدعو إلى دين السلام. لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحديث الثامن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. أخرجه البخاري. waxaan ku soo jirnay kitaabkeennii 40 xadiiثan fii cuddati اlmuslimi fi اlbalaa'i wاlwabaa. waa xadiidkii 8aad can cabdillaahi bni mascuud radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi cabdullahi bni mascuud: dakhaltu calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam. rasuulkii alle ayaan u galay. waa waqtigii rasuulkeena sal allahu alayh wasalam jirrada ee haysay oo uu sakaraadayay weeyaan. wa huwa yuucaku wackan shadiida, isagoo aad iyo aad loo xanuunjinayo. wackiga waxay leeyihiin hiya ama huwa alxumma wa qiila alamuhaa weeyaan, qandhada iyo xanuunkeeda. rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam xumo ay hayso oo aad u qandhan baan u galay, sidaasuu yidhi. wa huwa yuucaku, isagoo la xanuunjiyey wackan shadiidan, qandho aad iyo aad u daran ay hayso. cabdullahi bn mascuud markaa wuxuu sameeyey sida dadka caadiga ay sameeyaan, oo qof hadduu qandho iyo waxay hayso waa la taabtaa kuleelkiisa si loo dareemo. wuxuu leeyahay: famasistuhu biyadii, gacantayda ayaan ku taabtay, ayuu yidhi cabdullahi bn mascuud. oo rasuulka sal allahu alayh wasalam jirkiisii buu taabtay si uu kuleelkii u dareemo iyo qandhada haysa. faqultu waxaan iduu yidhi: yaa rasuula allahi, rasuulkii allow, ilaan marka hore kor buu ka arkay inuu aad u xanuunsan yahay oo qandho ay hayso ayuu dusha ka arkay. kadib wuu taabtay, gacantaan saareen buu yidhi. faqultu: yaa rasuula allah, innaka latuucaku wackan shadiida. rasuulkii allow, qandhaa aad iyo aad u kulul baa ku haysa. faqaala rasuulu llahi sal allahu alay wasalam, rasuulka alle wuxuu yidhi: ajal, haa, aad bay xumadii ii haysaayo aan u qandhanahay buu ku yidhi. ajal, nacam, innii uucaku, qandho markay igu dhacdo wuxuu yidhi waa lii qandhaysiiyaa kamaa yuucaku, sida loo qandhaysiiyo rajulaani minkum, laba qof oo idinka idinka mid oo kale. micnaha rasuulkeena sal allahu alayh wasalam dabal baa xanuunkii looga dhigaa. laba qof markay qandho qabato iyo isaga qandhadiisii waa isku mid ah. qandhadana sideedaba waa min fayxi jahannam. rasuulkeena sal allahu alayhi waalihi wasalamna inaan qandhada la habaarin hataa oo aanan la nacnadin buu sheegay. iyo sidoo kale qofka hadduu qandhado, maadaama kulaylka jahannamo uu ka yimi, in qofkii biyo qabow lagu shubo maal. sidaa darteed qofka qandhaysan
haddii uu qubaysto qandhadii way ka yaraanaysaa ilmaha yaryar ee qandhada ay haysa hadda haddii inta shukumaan yar lasoo qaado biyo la geliyo iyagoo qandhaysan madaxa iyo meel kasta laga mariyo qandhada way ka degaysaa rasuulkana sal allahu alay slam marka wuxuu yidhi laba qof qandhadooda kale aniga lagu qabtaa faqultu waxaan idhi buu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhu dalika ana laka ajrayn oo arrinkaa waxay ku dhacday rasuulka allahuma laba ajir baa lagu siin faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ajalhaa laba ajar baa la isiinayaa uma qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi maa min muslimin qof muslima ma jiro yusiibuhu adan dhib uu ku dhacayo ilan 40 xadiida waxaan ku jirnay qofka muslimka ah in la doonayo dhibaatooyinka inuu ku samro iyo cudurrada maadaama ajri uu helayo maa min muslimin yusiibuhu adan dhib uu ku dhacayo maradun uu ku dhacayo jirra ku dhacaysa ama mid qalbiga kaga dhacday ama mid jirka kaga dhacay famaa siwaahu iyo wixii ka soo haray qofka musiibo hadday ku dhacdo muxuu helayaa musiibo kuma dhacdo yiri dhib ama marad kuma dhaco dembi dhaaf buu u noqon ilaa xata allahu lahu sayi'aati waxaa looga tirtirayaa dembiyadiisii xumaayaalkii baa looga tirtiray ilan qofkan iimaan buu lahaa qadarkuu aaminsanaa ilaahay buu rumaysan yahay rasuulkiisii buu rumaysan yahay yowm alaakhir buu rumaysan yahay dhibaato kastoo ku dhacda dembi dhaafka ay noqonaysaa kamaa taxutu rasuulka tusaaluu bixiyey markaa ilan dadku waxay rabaan waxyaabo ay ku tusaale qaataan rasuulku wuxuu tilmaamay sal allahu alayh wasalam sida qofka dembiga looga tirtirayo kamaa taxutu shajaratu geedka sida uu u daadiyo waraqahaa caleemaheeda geedka sida uu u daadiyo caleemihiisa oo geedka markuu ingego waa cagaaran yahay wuxuu noqonayaa yelow buu noqonayaa abaartii markay dhacdo caleentii dhan baa daadanaysaa geedka sida caleemahay uga dootaan sidaas oo kale dembigiisiina looga tirtiraya waa sidaa ilaahay wuu ka tuuri xadka culammadu waxay leeyihiin xadda shay marka la dhaho waa anzalahu wa alqaahu geedka sida caleemaha uu daadiyo oo u tuuro sidaasaa looga tuurayaa sayi-aadkiiyo dhan cudurka markaa iyo musiibada iyo maradka haddii loo sabro ajirkaasuu leeyahay xadiidkan waxyaabo badan baa laga qaadanaya maa yustafaadu min alxadiidi xadiidkan cabdullahi bn mascuud faa'iidooyin badan baan ka qaadanaynaa waxaa ka mid ah khasa allahu caza wajalla anbiyaa'ahu bishayin min alawjaac lima khasahum bihi min quwati alyaqiin wa shiddati alsabri wاlاxtisaab liyakmula lahum althawaab wayatima lahum alajr alle subxaanahu wa tacaala ambiyada qaarkood inuu jirro ku ridi jiray oo imtixaan dartiis rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam baa qandhanaya oo xanuunsanaya oo aad u karkaraya oo qandhadii kor ay noqonaysaa markaasay saxaabadii la yaabayaan way leeyihin rasuulka allow qandho kulul baa ku hayse isagana uu leeyahay markaa waa sidaasoo laba qof qandhadoodoo kale ayaa la igu qabtaa taana ilaahay wuxuu ku khaas yeelaa ambiyada qaarkood maxaa yeelay yaqiintooda ayaa xoog leh sabirkooda ayaa badan alixtisaab ajir gurubsigooda ayaa badan ambiyada sidoo kalena ilaahay wuxuu cudurrada ugu imtixaamayaa tawaabkooda si uu kaamil ugu noqdo abaalmarinta ajarkoodana ay u helaan ayib wa fi lxadiidi sidoo kale xadiidkan waxaa laga qaadan jawaazu alikhbaari bishiddati alalam aladi yulaaqiihi almariid walaysa huwa min altashaki waaltasakhuti almamnuuc inay bannaan tahay qofka marmar hadduu xanuunsan yahay inuu dhaho qandha kululba ay haysa iyo waan xanuunsanahay iyo ilaan rasuulkii sal allahu calayh wasalam baa wuxuu leeyahay qandho kululba ay haysa in marka ayna noqonaynin sheegasho ilaahay laga sheeganayo iyo qadarkii ilaahay oo laga hor yimid iyo dhib ilaahay laga sheeganayo inaysan ahayn qofka dhibka ku dhacay waan xanuunsanahay iyo meeshaana laga hayaa iyo inuu dhihi karo rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam ayaa sidaa yidhi
طيب sidoo kale waxaa laga qaadan bay culimadu leeyihiin yustahabu lil'aa'idi qofka qof jiran booqanaya inay fiican tahay an yubashira al-marid bi thawabihi qofka jiran inuu dhaho ajir baad helaysaa ila Abdullah ibn Mas'ud wuxuu leeyahay rasuulka Allah waxa uu xanuunsan tahay oo lagu qabanayo qandhadan labada qof ma ajir baa lagu siinayaa laba qof la siin lahaa ajrayn miyaa lagu siinayaa in qofkii markaa jirana loo bishaareeyo oo la dhaho cudurkan ku haayo iyo jiradan ku haysa ajir baad ka helaysaa waad caafimaadi doontaa qandhadu sidoo kale ajir baa laga helaa salafkii dad waxaa jiray ilaahay ka bari jiray hatta inay qandhadaan ilaahu waxay dhihi jireen jirkayga ku qabo qandho cibaadadiina aniga celin soonkiina iga celin salaadiina iga celin maantana qofka wax yar hadduu soo gaaro waxaa laga yaabaa dadka qaarkiis inay isdilaan baa dhici kartaa inay sabrin sidee waxa igu dhici kartaa sidee arrinka u dhici kartaa waan caafimaad qabay raashinka waan ka dadaali jiray jiim baan ciyaari jiray waan ordi jiray wax kastaan samayn jiray waan is ilaalin jiray dad sida oranaya jira sidee waxaan igu dhacday meeqa caafimaad qabto ma arag dhalinyaro iska dhimatay meeqa dad weyn ah sariir saarnaa oo 20 sano 30 sano la hayay dad yaryarna ay markaa geeriyoodeen marka cudurkana markaas uu dheeraadana qofka muslimku ku dheeraado ajirkiisa uu sii badanayo sida rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamayo طيب ينبغي للمؤمن sidoo kale waxa laga faa'iideysan qofka mu'minka ah inuu an yazida fi shukrihi ta'ala ala tilka an-ni'ma inuu ilaahay ku shukriyo nicmada caafimaadka uu siiyo qofka muslimka inuu ilaahay markaas ku shukriyo oo yiraahdo alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi aafani mimma ibtalaka bihi وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا عافماتك لو سيي ان ادي الله وشكر سيلان ضبضا وحاجر مدبدا جرا عذر ربضا لو امتحامي فقر لو امتحامي بلاء لو امتحامي عذر لو امتحامي وحياه بدن ادينا الهي درجات بدن وكسي ارمها صودان ولا فايديسانيا sidoo kale macnaha guud xadiidkan waxa weeyaan أن المرض إذا اشتد ضاعف الأجر مركز عذرك وين إن أجرك وبضنيه قف مثلا ليلي أما كسر باقو دعاي يقف قنضير إيه هيس إنا نسكم دعاي عذرك مركز علوسية قف كليها لقاها بيرك لقاها يقف وحير إلى مكجبي أما إلى أي دعاي أما دقها هل دقواي إنا نسكو أجرها markastoo cudurka uu xoog yeesho sabar qofku markuu la yimaado ajirkiisina inuu badanayo faala kulli xaal xadiidkan sideedaad wuxuuna tusayaa qofka muslimka ah qandhaha haday ku dhacdo hadaa ajir in laga siinayo maradka ku dhacay dambiga in looga tirtirayo balaayada ku dhacday musiibada ku dhacday in looga tirtirayo aan iraahdo dambigiisa iyo ajir badan uu ku helayo sayi'aadkeena looga tirtirayo wallahu a'lam اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم ارفع عنا هذا المرض اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا رجزك وغضبك إله الحق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ونعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء ونعيذ أهلنا وأولادنا بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد